bisada buulkeedii qasnada ahaa. beri hore waxaa jiray guri bangala ah oo gaboobay. waxa ku noolayd bisad xukumi jirtay in ka badan 1,000 midh oo jiir ah, taasoo si khaldan u adeegsan jirtay bisadaha kale, ayadoo majara habaabinaysa una isticmaalaysa inay hanti qaaliyo u soo ururiyaan. jiirkii marnaba muu jeclaysan wixii ay bisadu samaynaysay, dabadeedna waxay damceen inay bisada cashar u dhigaan. isagoo bisada ka qarinaya ayaa jiir magaciisa la odhan jiray Miyir ayaa jiirar badan isugu yeedhay, waxaanay si qarsoodi ah u sameeyeen khariidad been abuur ah. dabadeedna bisadii ayay u dhiibeen. Miyir ayaa yidhi, eeg, waxaan soo helay khariidadan oo shandad ku jirta oo taalla meesha aynu ku kaydino qaniimadeenna oo dhan. bisadii ayaa tidhi, maxaad ka hadlaysaa? Miyir ayaa yidhi, khariidadan waxa ku yaalla dariiq kuu hogaaminaya oo ku geynaya qasnad qarsoodi ah oo ay macdani ka buuxdo. bisadii ayaa tidhi, ma runbaa? ii dhiib khariidadda. bisadii ayaa maskaxda ka tidhi, tani waxay u eg tahay qasnad heer sare ah, anaa soo qaadanaya oo iska leh. bisadii ayaa tidhi, waa yahay, dhammaantiin hadda iskaga taga meeshan, aniga ayaa maamulaya. bisadii jiirka dhammaantii ayay kala eriday, waxaanay bilowday in ay u dhaqaaqdo xaggii qasnadda macdanta. jiirku way garanayeen bisadu inay waxaa samaynayso, dabadeedna way ka sii horreeyeen iyagoo kolba xagga dambe ka soo eegaya. waxay hubiyeen in uu dariiqa loo marayo noqdo mid dheer si ay bisadu ayadoo daalan u gaadho qasnadda macdanta. markii ay bisadu gaadhay meesha, waxay ahayd mid aad u daalan, mabay arkayn waxa yaalla hareeraheeda, laakiin waxay aad u doonaysay qasnadda macdanta. markaas waxay bilowday inay doondoonto. aakhirtaankii bisadii aad bay u daashay, dabadeedna dhulka iska fadhiisatay meel ay ku taallo calaamad casi si ay ugu nasato. bisadii ayaa maskaxda iskala hadashoo tidhi, meeshan calaamaddu ku taallaa malaha waa halkii ay qasnaddu ku aasnayd. markaasay bilowday in ay qoddo halkii ay calaamadda casi ku taallay, tiiyoo awooddeedii dhan isticmaalaysa. intii ay qodaysay waxay si lama filaan ah ugu dhacday god ku yaallay dhulka. isla markiiba kolkay bisadii godkii ku dhacday, jiirka dhammaantii ayaa ku soo ururay godkii iyagoo xagga sare bisada ka soo eegaya. bisadii waxay tidhi, i caawiya, yaa i badbaadin kara? Miyir waxa uu yidhi, waxa aad maalmahan oo dhan samaynaysay wuxuu ahaa wax aad u xun. ficiladaadii xunxumaa ee aad galabsatay iyadoo lagugu karbaashayo, waxaad godkan ku jiri doontaa inta noloshaada ka hadhay adigoo ku dhibaatoon doona. bisadii waxay tidhi, markaa adiga waxaan oo dhan ka dambeeyey soo maaha? waxaan rumaystay wixii aad ii sheegtay, adiguna dabinka ayaad ii dhigtay, kuma dayn doona ee waa halkaad gashaa. Miyir wuxuu yidhi, keligay ma aha ee annagoo dhan baa waxaan ka wada shaqaynay si aannu u soo gebagabayno dunuubtii aad gashay, bal in aad iminka garato khaladaadkaagii, wixii ka dambeeyana aad wax wanaagsan samayso. Miyir iyo jiirarkii kale ayaa intay godkii dusha ka dabooleen ayay gurigii bangalada ahaa ku noqdeen. Miyir ayaa jiirarkii oo dhan la hadlay oo ku yidhi, waa in aynu dahabka iyo macdanta oo dhan dib ugu celinaa dadkii lahaa ee laga soo xaday. jiirka dhammaantii ayaa isku raacay inay lacagta iyo macdantii oo dhan dib ugu celiyaan dadkii lahaa ee ku noolaa tuulada. jiirkiina waxay aakhirtaankii noqdeen kuwo xor ah oo faraxsan iyagoo ka raystay bisadii. waxay aad ugu riyaaqeen Miyir oo lahaa qorshihii lagu qabtay bisadan xun. waxay madaxweyne ka dhigteen Miyir si uu u hogaamiyo jiirka oo dhan, sababtoo ah wuxuu keenay caqli iyo go'aan wanaagsan.